السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا دمان أصحاب تلك نيجا دعوانا يسمى والبا وأشوفتان يسول بو مقال كيجو ومركا يدين سو غاريبه مقال كم حندون يا أما أنا وطلع قلي نكبر عيسى اللي يراهدو عبد حرسي وحنا كيجت شواب يا هذا الله يسوي شراء قذف بند يولي بكل الناحية إسلام كان أول شيء نكان ضيقة عبد حرسية وحن سيدو كله عن ربا إن بال إن ير عن كومنتي جريو مسج بريفة ونكا ضيقة عن أدري إسلام كان أمل ببلغة وكشيء تاسوء وحاد أوجه السيسا مقام كنيكا ضيقة عن كفلي marka balsooda waad meel walba joogtaan isoo muuqaalkaygu marka idin soo gaarayba waa 22 December 2025 waana markii ugu horeysay maanta hawada ku kulmayno waxaan mar kale xasuusinayaa inaad channelka isku xirtaan si aad la socotaan muuqaalada ugu dambeeya oo waliba aan u cudur daarto odayaal aqoon-yahano dad intellectual family qaraabo asxaab iyo dad badan oo kala duwan oo saacadii hadda la soo dhaafay ila hadlay isla markaasna igala hadlay inaanan Cabdi Xirsi aanan markaasi u jawaabin oo waliba jawaabtii uu xaq u lahaa aan markaasinin laakiin muuqaalkaygu wuxuu daaran yahay oo kaliya inaan iska baryeelo waxyaalaha cheap shot ka ah ee odayga xaqiisa ka yimaaday iyo waliba inaan digniin aan u diro cid walba Soomaaliyeedna ay ogaato digniintan odayga u dirayo haddaan gudaha u galo waxaan rabaa marka hore bal inaan comment gareeyo analysis-kii Cabdi waxaa la soo fariistay warbaahinta uu ku sheegay inuu falanqeynayo doodii markaana dhaxmartay aniga iyo jaajuuskii weynaa ee Cabdi Iftiin Sheekh Cabdi xaq buu leeyahay aragtidiisa ciduu arko inay guuli ka muuqata ayuu guul siin karaa cidii uu doono ayuu caashaqi karaa cidii uu doono ayuu leefleefi karaa waa arin asagu markaas uu xaq u leeyahay laakiin xaq uu laha inuu qadaf iyo gaf iyo wuxuusan iga aqoonin eedeymo iyo waliba inuu ka hadlo waxyaalo aynu si bareefada aynu markaasi oga hadalnay aanu arko inay tahay wax maqaamkeedu ay aad u hooseyso oo canuga yar 10 sano jira xataa aysan ka suurtoobinin falanqayntii Cabdi Xirsi xalay wuxuu sheegay in Xuseen Jaamac ninka la yiraahdo ay ninkan idin hor fadhiyo wajiga balaaran in markaasi kabaha lala dulmaray in kabaha lala dulmarayna muxuu ku dhisay Cabdi Xirsi dhowr qodob buu ku dhisay qodobka ugu horeeya wuxuu ku dhisay inuu Cabdi Iftiin uu diiday inuu ka jawaabay su'aalihii la weydiiyay inuu markaasi uu ka meermeeray iyo waliba arrimaha la midka marka su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay cid su'aasha ka jawaabi weyda cid ka meermeerta gusha ay gaari kartaa gul noocee weey waxaana waligay maqal qof inta waraaq iyo buug qaatay yiraahdo exam baan galayaa oo aan waxba qorinin in la yiraahdo eebu keenay la mid hadaltaas markaysa qof inta exam galay waraaqii qaatay la yiri su'aalihii ka jawaabay aan ka jawaabin ayagoo planki ka tagay ay la mid tahay qof su'aashii la weydiiyay ka jawaabi waayay haddana la leeyahay gul weyn ayuu gaar Cabdi Xirsi wuxuu sheegay markii laga hadlayo doodaan inay ahayd dood maqaamkeedu aad u jaban yahay wariyaashu aysan ahayn kuwa shaqadii loogu talgalay qabanaya nin extra oo la aqoon waxa uu qabanay meesha uu dhex fadhiyay wuxuu yiri grade ka aan siin lahaa F baan siin lahaa from A to F or fail baan siin lahaa haddana dooda uu leeyahay F baan siin lahaa grade ahaanteeda way dooda uu ku tilmaamayo in walaal Xuseen Jaamac markaa ka bahal dulmaray marka taasi waa guusha waxyaalaha uu odaygu uu ku bixiyay waxyaalaha kale uu Sheekh Cabdi uu sheegay waxa kamid ahaa wuxuu yiri Xuseen oo adiga awood ku siiyay inaad dadka adigu gaalaysiiso red card-kan awood ku siiyay haye qaybta dambe wuxuu sheegay markii la fiiriyo cadeymihii aan banaanka keenay oo isla muuqaaladii anigu aan keenay oo Cabdi Xirsi uu isticmaalay markii la eego inay kufriyaad tahay lagu gaaloobayo oo hadii qofka marka aad qarsan tahay inuu kufriyaad ku dhacay muuqaalada waxa ka muuqdana ay kufri waaweyn ay tahay ilaahay baan ka magan galnay in gaal loogu yeero waxa diidaya maxay tahay mise gaalnimadu waa mid adiga iyo koox aad ka tirsan tahay oo kaliya markaas u xiran weey arintaas weydiinta mudan weey inta aanan ka bixinin qodobkan la xiriira inaan comment gareeyo waxyaalihii uu odaygu wax ku dhisay ayaa waxaan rabaa inaan umada u sheego markii la fiiriyo erayadii uu Cabdi Xirsi aniga ii isticmaalay waa copy and paste hadaladii Cabdi Iftiin eraya uu ka soo guray ayuu aniga igu shaabaday waxaan oran karayaaba cidii meesha fadhiday hadlaysay wax falanqeynaysay Cabdi Iftiin buu erayada uu isticmaalay waxa kamid ah in Xuseen jaahil yahay
وهذا الكلمة دنك عبد إفتن وحكى كم إذا إن عن إراهضه نكان واقال إني موجينيسو أما أتهايد ده عدي نمك وحجالسين شري قواريج جها وهذا الكلام دنك عبد إفتن كلمة دي حسين وقواريج عبد حرس وحكى الله إيران نكان إراهض قال إني أنا أدركتها لكن مرنا كم وصل هذا الكأه ومال والبقولة تاجي هاي عبد إفتن أو أنا قواريج يجيريه كم وصل هذا مو عارف حيلها كلو عن كحسوست وحكى بده إنه العذر دار السمية إنه يراهدي أما أولها أذروات في عن تهيبة حيلا بدن أتكو في عن تهيبة جري إنن في عن بعتها لكن حسين الحوية فجاهل أسوي فري إنه قال يبوه مركزي وقاته مركز مركز فلانقين تاسو وحياله نيكي أضيقها حال ماشى الله سو فريستي وحبان فلانقين يا وشاني مركي أفيري هذا الكي عبدي حرسي عيسو حسوسي هذا الأسوء أورنشري أو قطبات وسعيدني هراي وشيدية أو وما قاعد دري بقام بقو إسل الفيديو جي كله أيو عبد حرسي هتها أنا جي صدره حنا لو قاعد تبين تسكت يا عبد إفتنك إنه أنا جي عادية وحدون يجش حتى أمشي جواب الحي لكن ما دام ومال كله يرجع يسهيني مقال كيسي استعمال يعني أنا هقول له مركي أنا أرنتها أنا كجوابه أنا أقول أسرع أنا كل حد قد بني قطبتي بقام بقى عبدي وكش جاي ندني قطبتي سؤال بقام بقى أهيد قطب كيوجو ويناي وكش جاي وحي أهيد إنه سعيدني ويرفر ماتش أنت إلى الصحة لي أيوه يريره بالساس أهاي أنا عد إيش وضع تملا هنا إسلا أنتي أيوه مركي عبدي حرسنا حال الشيء حسين بمسج إيش ودريبير حد قياستاني كان عضيقة wadaad ka sheeganaya koofida qaba dadka waaweyn baa ilaha hadlale nin asaga ay individual isku yaqaanaan oo sheeka wadaad yihiin muddooyinka kamidana ay muddo badan saaxiib ahaayeen oo asaga tabasho ka qaba oo tabashada aan qaba xataa aysan ahayn tabasho aan kala xishoono inaan public geeyo waan asaga u diray ku yiri cabdi usama adeer sama baasha sanire laba mid buu xaq u lahaa inuu mid yiraahdo وان كاغا غرابيا يدو ka garaab way hatta isaga am saxab buu leey laakiin private message Xuseen ku soo diray hadaad public keeni karto dadka aad sheegatay masuuliyiinta saaxiibka la tahay bari maxaad ku sameyn doontaa that is a very disappointing mataqaana tilaabo ay aad qaaday waxayna fariin u tahay qofka aad tahay bay fariin u tahay waxay arintaas u dhimi doontaa cidii dambe oo arinta ay kala hadasho dad tira badan baa aniga ila hadla odayaal aqoon-yahano hadan qaar kamid ah xataa aan ixtiraamayo hadaladoodii oo aan ka gaabsanayo inaan wax badan iraahdo oo aan dhihi karay suurtagal ma ahan qof aynu xataa ishayno cabdi iftan haduu caaw message ii soo dira xataa oo dhahay adeer qoodhay xirada iga wareejado dhaha xataa oo toobadkeeda yahay suurtagal ma aha ilaahay baa igu giraan banaanka keeno waayo waxa ii kala soocaan private message-ka iyo waxa public ah وان قفك حدود ليهي واتلابا موجينيسا مسؤولينimada واتلابا موجينيسا qaangaarnimada واتلابا موجينيسا bisaylka halkaas ka bilaabata qodobka intaasan ka leeyahay qodobka jahliga ayaan in yar ka leeyahay ka bacdi digniin baan ku xijinaya waana soo gabagabeynaya arinta jahliga ah Xuseen jaamac jahliba ma in cadeynaya su'aasha naftirkeeda inaan ka jawaabo waxaan ixtiraamaya waalidka idalay hooyada iyo aabahay muddada badan dhaqaalaha iyo xooga ku bixinayay inaan maanta wiil yar soo orday oo san jaahil igu yeerin muddo badan iyo xilli adag bay waxay ku bixiyeen inay tacliinta mid ugu sareysa ay geeyaan waxaan rabaa inaan yar idinkaga sheekeeyo dadka aan aqoonin Xuseen Jaamac waa nin timekiisii ugu badnaa ku soo qaatay dalka Kenya khaasatan magaalada Nairobi ee caasimadda u ah dalkaasi Kenya ma ahayn dadkii qaxootiyada galay dadkii magaalada deganaa ee caasimadda deganaa baan ahaa maraykan inaan imaado xataa dadkii qaxootiga ku yimaaday baan ahayn alxamdulillah waxaan ahaa dadkii fursadda u helay inay iskuulka meesha ugu hooseysa ee primary-ga inay Kenya ka bilaabaan iskuuladii aan soo maray waxaan ka xasuustaa iskuulkii ugu horeeyay aan primary-ga ka bilaabay isla airport baa la oran jiray iskuul dhinacaas ee airport-ka ku dhagan oo Soomaalidu ay dhigan jirtay baa ahaa meesha ugu horeeyay primary-ga ka bilaabay markii dambe exam-kan waxaan ka soo biyay iskuul kale private ah oo computer la yiraahdo high school keygii asna waxaan aaday iskuul kale oo isla high la yiraahdo iyo isla computer sidoo kale asaguna school private ah oo generation keygii aynu xooga baran jiray iskuul fiican ah marka halkaas aan ka soo bilaabay high school keygii waxaan ka mid ahaa
dadkii generationkaas aan la socday ugu buundada sarreey aad loo cawrinayay xilligoodii baan ka mid ahaa midaan waa mid ka mid ah shahaadooyinkii aan xilligaas qaatay ee high schoolka ah laba system oo high school aan sameeyay mid IGCSE buu ahaa oo Britishka laga leeyahay midna KCSE buu ahaa on hadda maleynay in Kenya ka guureen labadii shahaadaba waan hayaa marka halkaas aan ka soo bilaaba grade fiican oo ilaahay imakan siiyay ayaa waxaan fursad u helay inaan aado jaamacadii ugu sareysay ee dalka Kenya ee xilligaas ka jirtay markaynu ka hadlayno School of Business jaamacadda Strathmore la yiraahdo sidaad ka arkaysaan kan waa ID-gii xilliga tanna waa mid ka mid ah shahaadooyinkii aan halka ka qaatay oo aan markaas ka diyaariyay Bachelor of Business Information and Technology baan ka diyaariyay markaysa dadka course-kaas barta ayaa waxay fursad u leeyihiin inta badan inay sameeyaan waxyaalaha intelligence-ga la xiriira waliba business intelligence-ga markii laga hadlayo in fraud la raadiyo oo kale arrimaha la midka ayay inta badan aadaan hatta dhinaca kale criminology hatta way aadaan si walba ha ahaato waxaan kaloo ka diyaariyay wax loo yaqaan SCA waa chartered maxaa la yiraahdaa exam based on UK accounting ka laga sameeyaa waa one of the biggest chartered way markii laga hadlayo xagga accounting sidoo kale hatta dhankaas iyo Ingiriiska ayaan ayadoo ka diyaariyay oo laba shahaado midna account ah midna business and technology ayaan ka diyaariyay oo labaduba aan hadda gacanta ku hayo waxyaalaha sidoo kale aan xilligaas ii suurta galay inaan diyaariyo waxa kamid ah inaan aado college asaguna aad caan u ah aad u fiicnaa oo Grafins College loo oran jiray oo asaguna aan business management aan ka sameeyay waliba asna associate ah xilliyadaas aan jaamacadda iyo college-da dhiganayay qaar kamid ah sawirradii waa kuwana qaar kamid ah ID card-da wali haya shahaadooyinkeygii qaar baa wali halkan ii yaala oo caawa hatta aan dib u xasuustay si aan marka ixtiraam u siiyo waalidkii dhalay waxaan rabaa in ummadda Soomaaliyeed waxa qiijiyo ninka Xuseen la yiraahdo waxyaalo lagu xanta way jiraan laakiin jahli kuma jiro ilaahay baan ka magan galay waxaan uga mahad celinayaa waalidkii dhalay ee muddada badan iguna tiiray tacabeelay kana dadaalayay maanta oo kale in la yiraahdo Xuseen waa jaahil hooy aabo watintii khayr la siiyo jazaakallah tawa inta hadan soo koobo oo aan digniin yar أنا عبد الحرسي هود أصلا مريانا واحد بدن احترامية واحد بدن أنه حيرينية عبد الحرسي هذا الكاجي حالي هو بين هو fabrication هو personal نعيب عاد ميل عاد إيسو مرتعد لا هذا هو أجد مسج لكن واني بنقصي لا إياه هذا باك أوف دبتوك أركيسه نين يقان يمسو آدو ونوجه قونت هذه اللي أد بيويرتها هاي سؤال هذا تذكر حاجة تو ملها كعايدو أنا كوك مجر دبي يقدر هذا دبي يقدر كنين هنكوب اللنقاض يا إن يدمت كوضو أديكو مقعية بدن له أديكو سيدا دو أكتانو أكين أديكو سؤال بدن كدول هوغن يان أديكو سيدا هذا دو أكتاسي كدوانو أك أي أديكو تيجي دونتا مركا دبي يقدر مركا I give you warning black and white muuqaal dambe oo leedahay iyo nimankaas aynu hayligiisan ila iimaanin ha tobaraac yar oo dambe oo jilcisan aad hayla iimaan I don't buy that bullshit magarata back off dib u laabo intaasan ku leeyahay ma doonayo inaan cadiifad iyo nacayb iyo dagaal inaan ku qaada ma doonayo suuradda iyo koofida iyo cimaamada iyo title-ka aad leedahay baan ixtiraamaya rag badan oo kugu hareeraysan waan ixtiraamaya adeer marka waad iga gardaran tahay la iguma soo ordee adeer hay u soo dheereen dib iiga dow intaasan ku leh ummadda Soomaaliyeedna waan ka cudur daaranayaa message noocaan aad dhageysataan laakiin waa laga maarmaan warning-ku arrin loo baahan yahay mararka qaarkood dadku waa in la yiraahdaa adeer waa idin degaa iga leexda dadka anigu aan jecelahay inaan dul istaago inaan wax ka sheego inaan bayaamiyo waa dadka ummaddan u arkeen dhibaato ku hayaan ma jeceli qof aan ummadda dhibaato markaas inuu ku hayaan u arag inaan xagxagtaa ma jeceli ma jiro qof aan baaro oo aan xoog ka keeno oo aan ummadda dhibaato ku hayn ma jirto waxaan u isticmaalaa xirfadaydan investigation-ka oo kaliya waa inaan qofka aan u arko ummadda inuu dhibaato ku yahay inaan u isticmaalo maaha mas'ala aan u isticmaalo dagaal shakhsi ah intaasna waa intaasaan kusoo koobayaa
muuqaalada dambe ayaynu arrimo kale kaga hadli doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.